magacaygu waa Cabdifataax Maxamed Cabdi Kulow runtii xulka qaranka waxaan u arkaa guuldarrada markasta ku imaanaysa inay tahay diyaargarow la'aan sababtoo ah qofka ciyaaryahanka ah muhiimadda koowaad waxay tahay niyadiisa inay dhisnaato yacni noloshiisa macnaha ay qurux badnaato sidaan ognahay ciyaartooyda Soomaaliya xuquuqaha ku filan lama siiyo xagga haddii noqoto xagga fitamiinka yacni nolosha qofka bini'aadamka ku saabsan inay macnaha raashin borotiin leh ku filan heli waayaan noloshooda caafimaadkooda iyo noloshooda gaarka ah macnaha niyadooda xaggooda aan laga dhisin waxaasaa u sabab ah guuldarro la'aanta sidaan qiyaasahay waa runtii shacabka Soomaaliyeed marxalad adag ay ku jiraan waxaan dhihi lahaa horta shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqi lahaa inay xulkooda taageeraan waddan kasta waddanka marxalad kasta uu ku jiro waxaa loo baahan yahay inay shacabka xulkooda qaranka ay il ku fiiriyaan runtii qofka ciyaaryahanka markuu taageero fara badan uu arko niyadda u dhismaysa sidaan qabo marxaladaha kale inuu ka gudbayaan qabaa macnaha ciyaaro kastoo adag markuu taageerihiisa uu indhaha ku dhufto runtii karti iyo awood seed uu ka qaadaa waa run ma diyaarsano runtii inta badan ciyaartooyda aqoonta leh horta qofka xirfadlaha ah oo banooniga dheela waxaa loo baahan yahay aqoontiisa in lagu qaato laakiin sidaan ognahay ciyaartooyda aqoontooda laguma qaato barnaamijyada noocaasaa jiro aniga waxaan dhihi lahaa qofkii Soomaaliya waddanka wax uu qabanayo Soomaaliya wax u taraayo ciyaartooy ah oo la isdhihi karo maanta gul uu waddanka u soo hooyin karaa macnaha in la wado mideeda kale qofka ciyaartooyda in la diyaariyo maalmaha oo ciyaartooyda bilooyinka ay rabaan in la wado macnaha tababar in loo sii fidiyo fasax aan loo ogolaanin niyadooda ay dhisnaato wixii ay u baahan yihiin la siiyo noloshooda gaarka la kaafiyo fitamiino jirka loo dhiso qofka markuu awoodii jirkiisa ay dhisan tahay niyadiisa ay dhisan tahay markaas uu wax qabsan karaa waddankiisana wax uu qaban karaa goobjoog iyo saaxiibka Roray waa mahad celinaya hadda u soo laabto su'aasha ay weydiisay saaxiibow xulkan qaranka Soomaaliya qiimuhu uu ku fadhiyay iyo qaaradda Afrika kaalinta ugu jira maxamed maantay xataa Serie B-da ama Serie C-da xataa wadamada qaar inaan aad uga hooseyno sababtuna waxay tahay laba maado aan ku sarrabeynayo midda koowaad oo ah in xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay laftirkooda ay ku kala qaybsan yihiin habka xiriirka ay la maamulayaan xulka qaranka Soomaaliya iyo midda koowaad oo ah midda labaad oo ah in aysan jirin connection ka dhaxeeya isku xirka ciyaartooyda oo mar allaale markii ay imaato in xiriirka uu baxayo ciyaaraha qaaradda Afrika ama aan iraano ciyaaraha kale ee adduunka markaan ka qayb galayno in ciyaartooy isku keenay oo aan connection lahayn oo aqoon isku lahayn oo aan isku tayo ahayn in la isku keeno taas oo keenaysa in isfaham la'aan xiriirka dhexdiisa ka jira taas inay sabab tahay midda kale ah in xiriirka dhexdiisa eex ka jirto oo aan ciyaartooyda xataa aan kuwa gudaha laftirkooda aan la isku dheelitirin sababtoo ah ciyaartooy badan oo waxaa jirta oo active ah oo dalka jooga oo wax badan aan isleenahay way ku soo kordhi lahayn midaasaa keenaysa in xulkeena qaranka Soomaaliya uu wax horumar ka gaarin waddan weyn iyo mid yarba inaan waxba ka gaarin xataa jasiirado yar oo hadda aad uga hooseeya xulkeena xataa hadda horyaalka Soomaaliya ka dheera ay aad uga hooseeyaan oo tayo ahaan in xulkii Soomaaliya ay ka badiso oo wax ceeb nu ah qalankeenana ceeb soo jiidaysa xataa mustaqbalkeena dambe way saameyn ayay ku yeelanaysaa marka waxa aad u soo jeedin lahayn oo dadka aan xog u saari lahayn waxay tahay in xog la saaro xiriirka Soomaaliya in dib u eego connection ahaan iyo xiriir ahaan in xog la saaro sidii ay horumar loogu gaarsiin lahaa la isku xirna loogu sameyn lahaa in loo sameeyo aad u soo jeedin lahayn midda kale isku xir weyn in loo sameyn lahaa xagga maamulka in loo sameeyo xulka waxa ugu weyn hadda aan tirsanayna waxay tahay home la'aantana haysato waddankeena soo home lahayn oo dalkeena xogaa bur jiro saas oo tahay isku xir la'aan baan u sababeynayaa waxaan rajeynayaa insha Allah ciyaaraha soo socda Soomaaliya inay guur gaarto aadan u mahadsantahay maasanta Roray marka xigta xulka qaranka Soomaaliya marar badan waxa la arkaa in koob laga soo reebo inta badan laga badiyo natiijooyin aan wanaagsan xulka la soo kulmaan markaan ka soo qaadano kulanka ugu dambeeyay Iswitiin ay wajaheen agrid ahaan 5 gool iyo gool
ay lagu soo reebay si reeb koobka ee qaramada qaaradda Afrika ee AFCON sidaas ay tahay haddana xulka qaranka Soomaaliya waxaa loo sababay karaa waxyaabaha dhibaato u keenaya xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan asagu ahayn mid inta badan nidaamsan dhexdooda isqabsi uu ku jiro aan micnaha u diyaarsanayn inay xulkan ka dhisaan ama ay ka dhigaan xul taagan tartami kara ma heli karaanba waa in ka yar 2 asbuuc ayaa micnaha waqti la siiyey si ay kulmada iskugu diyaariyaan taas macnaheedu marka waxaa la dhihi karaa isku diyaarin badan ma helin xilli ama ay iskula qabsadaan in ay isku fahmaan xiddigo ma is helin xiddigaha inta ugu badan qaarkood af Soomaaliga ma fahmayaan xitaa luqad kale ku hadlayaan sidaas darteed marka waxay ahayd in xiddigaha horyaalka Soomaaliya ciyaara in badan laga aaminay ahayd laakiin ma ayna dhicinin sidaas ay tahay xiddigaha daafaca xitaa xulka qaranka ciyaaraya waxay ahayd xiddigo aan barasha dareemaynin ba isku baashaal camal iska ciyaarayay sidaas ay tahay haddana xulku isku diyaarin badan ma u sahlin waxay tahay xulka markii uu matalayo ama koob noocaas ka qaybgalaya in ka badan 4 bil 5 bil in isu keeno tababar qaataan isfahmaan isdiyaariyaan laakiin ma ayna dhicinin waa dhicin loo baahnaa dadku waxay matalayaan Soomaaliya inta ugu badan marka wadamada horyaaladooda ka imaadaan ciyaarina watala waxaa jira daayar badan oo xulka inay matalaan u taagan kooxoodana heerar badan ka taagan marka horyaalka Soomaaliya loo eego xil ciyaareedka horyaalka Soomaaliya Premier League hal nin ka matalayay ama safka koowaad kaga jira waana Ibrahim Ilaasrig yarka la yiraahdo oo soo horseed qayb ka ah marka habka loo baahan looma xulin waqti ku fiican nimanka isku fahmaan lama siinin marka waxaa la oran karaa xilligu ka gaabiyeen laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah nagasti inay sidaas ka wanaagsan ahaan doona waqti badan la sii doono